السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله markuu geeriyooday Nabi Nuux ay dadkuna farabateen ayaa Ilaahay ka yiri kadib waxaan la gadaashood qarni kale jiilkaasi mid Nabi Nuux kadib waxay ku faafeen dhulka jasiiradda Carabta maadaama ay ahaayeen dadkii ka badbaaday duufaanta ee la jiray Nabi Nuux dhamaantooda kuwa muslimiin ah ku taagan diinta Nabi Nuux uu baray balse muddo kadib wax badan ayaa isbedelay si tartiib ay wax walba isku rogeen qomkii ugu horeeyay oo yimid Nabi Nuux kadib waxay ahaayeen qomka Caad maadaama ay dheereed muddadii u dhaxaysay qomkii Nabi Nuux iyo reer Caad waxa isrogay wax fara badan waxay hilmaameen tawxiidkii lagu waanin jiray waxay noqdeen bulsho ku badan xumaanta iyo isdulminta Nabi Hud ayaa noqday rasuulkii labaad ee loo soo diray dadka waxaana loo soo diray qoomka uu ka soo jeedo ee reer Caad oo gala Irama waxay degnaayeen Axqaaf oo ah buuro bacaad ah ee ku taala jasiiradda Carabta waxay dhisteen guryo heer sare ah oo ilbaxnimo ka muuqato balse ilbaxnimadooda waxa ku ciyaaray waxay noqdeen kuwa caabuda dhagaxyo iyaga sameysteen ay ku magacaabeen magacyo maxaa yeelay markasta ay dheeraato muddada ay yaraan dadka waaniya shaydaanka ayaa u qurxinaya dadka inay sameeyaan bidco wax cusub inay la yimaadaan oo khilaafsan diintooda taasina waxay ku qasbaysaa muddo kadib inay isu bedesho gaalnimo sida bedeleen qoomkii Nabi Nuux Nabi Hud wuxuu u sheegay qoomkiisa reer Caad inay ka tagaan cibaadada sanamkan dhagaxyada iyaga sameystaan ay u jihaystaan cibaadada Ilaahay kaliya balse waxay dhaheen waxa tahay doqon beenlow ah Nabi Hud ayaa iska bariyeelay wuxuu ku yiri ma ihi doqon balse waxaan ahay rasuul diga ah oo idinka idin soo diray oo runlow ah idinka ma doonayo mishaarina ay siisan balse ajarka waxaan ka doonayaa Ilaahay reer Caad waxay ku dhaheen nabiga loo soo diray Nabi Hud sidii ay dhaheen qoomkii Nuux nabigooda Nuux wuxuu Ilaahay u soo diri waayay malaa'ik intuu soo diray qof anaga oo kala waxaan u aragnaa inay wax ku gaarsiiyeen ilaahyahanada cudur Nabi Hud wuxuu u sheegay qoomkiisa Caad inuu ka cabsanaynin waxyaalaha ay maleegayaan oo Ilaahay tala saartay oo ka doonaya kaliya inay ka tagaan cibaadada sanamyadan iyaga sameysteen wuxuuna kaga digay cadaabka aakhiro waxay ku dhaheen miyaad doonaysaa inaan ka dooran hal ilaahyahanada aan ka dhaxalnay abayaasheena waxaad ugu gundinaysaa haddii aan dhimano aan noqono caro in la soo celinayo taasina waa mid fog aad u fog haddaan dhimano waxaan noolaanayo dad kale waxaana kadib soo baxayo jiil kale lama soo celinayo waxaadna tahay qof ku been abuuranaya Ilaahay Nabi Hud wuxuu ku yiri qoomkiisa Caad waxaad dhisanaysaan guryo waaweyn sida idinkoo waarayo kale waxaadna u dilaysaan si arxan dara ah qofka aad qabataan ee Ilaahay ka cabsadaya adeeca xusuusnaada nimcooyinka Ilaahay idin siiyay ilo biyo ah beero iyo awood wuxuu idinka dhigay dadkii dhulka u haray markii la halaagay qoomkii Nabi Nuux ee Ilaahay caabuda una tooba keena wuxuu idin soo dirayaa roob wuxuuna idinku dirayaa awoodiina awood ee jeesanina idinkoo dambiilayaal ah reer Caad isla qaboynaantooda waxay ku dhaheen Nabi Hud yaa naga xoog badan anaga Ilaahay ayaa u jawaabay waxa idinka awood badan Allahi idinka idin abuuray markay dhaheen qoomkii Caad kama tageeno cibaadada ilaahyahanada aynu ka dhaxnay abayaasheen hore ee hadda run sheegaysan oo iimaan cadaabka aad noo goondinayso Nabi Hud muddo badan uu waaninay qoomkiisa Caad ayuu ka quustay wuxuuna ku yiri halaag idin sugnaado miyaad igula doodeysaan sanamyo idinka aad sameysateen oo cadeen ka haysan xagga Alle ee suga cadaabku idin imaanaya annoo idin la sugayaay waxay ku dhaheen reer Caad Nabi Hud waa isku keen mid haddaadna waaniso iyo haddaad iska aamustaba kuma rumeynayna kuma raaceen in alla imaan cadaabkaaga aad sheeganayso waxaad sheeganaysaa inay jirto qiyaamo taasina waa diintii dadkii hore oo laga soo tagay reer Caad waxay ahaayeen dad sugaya roob inuu soo da'o maadaama ay ku jireen abaar maalmaha ka mid ah ayaa waxay ka arkeen xagga togooda daruur xoog leh oo ka soo socoto daruurtii way ku farxeen waxay isdheen waxa idin imaanaya roob balse intay sugayeen roobka ayaa waxa ka timid xagga galbeed dabeel qabow oo qaylinayso guux xoogan leh dabeesha ayaa ku habsatay dhammaan qoomka reer Caad dabeeshan waxay ku socday 8 maalin iyo 7 habeen waxayna ka dhigaysay kuwa kor loo tuuro dhulka lagu soo gamo geed tamir oo jiridka laga soo gooyo kor loo tuuro ee la soo ganay dhamaantood waxay noqdeen kuwa ku daadsan aan waxba ka soo harin waxa muuqday kaliya guryahay degnaayeen sidaas ayaa Ilaahay ku baabiyay qoomkii kibirka badnaa ee ku faaniyay ilbaxnimo iyo awood iyo dulminta dadka danta yar wuxuu Ilaahay ka badbaadiyay Nabi Hud inta raacday waxaan hore u soo sheegnay nabiyada waxa raacayay dadka danta yar ee ka tirsan bulshada mar walbana waxay ahaayeen kuwa ka badbaada cadaabka lagu ciribtirayo dadka gardarada iyo diin la'aanta ku noolaa bulshada dhexdeeda sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wassalamu alaykum